بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قال الإمام أبو داود سليمان بن أشعث السجستاني رحمه الله تعالى: باب في قتل الأصير بالنبل. ku saabsan yahay fii qatli lasiir, midka la soo qafaashay ee gaalada xarbiyiinta ee dagaalka lagu qabtay, asiirkaasi oo la dilo binabli, leeb lagu dilo. nabligu waa leebka. waxaa bannaan almanu waalqatlu waalfidaa, intaa way bannaantahay in la iska galladaysto, la iska sii daayo. wafaclahu rasuul calayhi salaam waa sameeyey. iyo in fidyo iyo furasho wax laga qaato lagu sii daayo waa dhacday iyaduna fii qaswati badar. iyo in la dilo iyaduna way dhacday, sala allahu alay wasalam nabigu waa sameeyey fii qaswati uxud. qaala xadaanaa saciid bnu mansuur qaala xadaanaa cabdullaahi bnu wahbin almasri qaala akhbaranii camru bnu xaariثin almasriyu can bukayr ibn اlashaj can ibn الticli bikasri ta wasmahu cubayd الdaai alfalastini. qaala wuxuu yihi ibnu ticligaas cubayd الdaai: gazawnaa waa duulay maca cabdiraxmaan bni khaalid. cabdiraxmaan binu khaalid ibn اlwaliid maciisa oo isaga amiir u ahaa. fa uutiya waxaa loo keenay biarbacati aclaaj, 4 aclaaj ah, jamcu cilj. ciljiguna waa alrajul alqawiyu dakmuna waa la yihahdaa. gaalada cajamkeen carabta aheenna waa la yihahdaa cilj. uutiya waxaa loo keenay biarbacati aclaaj, 4 gaalo oo gaaladii ka mida ee cajamigeed, min alcaduwi cadowgiina ka mida. fa amara bihim, cabdiraxmaan bin waliid wuxuu amray nimanka 4taa in la laayo. faqutiluu waa la dilay sabra, ayaa lagu dilay. sabrigu waa xabsan weeyaan, iyagoo xeedhan oo la toogto. qaala abu daawuud wuxuu yihi: qaala lanaa kayru saciid ibn abi caruuba kayrkii can ibni wahbi ka wariyey fi hada alxadiid wuxuu yihi: qaala binabli sabra, nabli baa lagu dilay, sabran xaalihi kuwa masbuuriin oo la xabisay. fabalaqa dalika, warkaas iyo cabdiraxmaan ibnu waliid inuu amar ku bixiyey in lagu laayo ayagoo xiran. balaqa dalika, warkaa waxaa gaaray abaa ayuub alansaari ayaa warkii soo gaaray. faqaala wuxuu yihi: samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam, nabigaan maqlo yanaa reebaya can qatli sabri, dilka xabiska ee qofka la toogto asagoo xidhan lagu toogdhisto la toogta. fawaladii nafsii biyadihi, allaha naftayda gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartay, low kaana dajaaja, hadday ahaan lahayd waxaa xidhan dajaaja, dooray ama digaag, maa sabartuhaa, iyadoo xidhan ma xabiseen oo ma toogteen, xabis kuma toogteen. fabalaqa dalika, warka abaa ayuub alansaari iyo inkirkaa uu inkiray waxaa gaaray, oo warkiibaa waxaa gaaray cabdiraxmaan ibnu khaalid ibnu waliidkii amarka bixiyey in abaa ayuub alansaari warkaa uu diiday. xadiidka nabiga calayhi الsalaatu wasalaam, annahyu can qatli alxayawaani sabra, qatlu maa fiihi ruuxun oo dhan baa soo aroortay, kama fi saxiixi muslim. faactaqa wuxuu xoreeyey cabdiraxmaan binu khaalidin 4 riqaabin, 4 addoon buu xoreeyey, kafaara iyo dembi dhaaf in ilaahay subxana wa tacala ugu dambi dhaafo khaladka uu galay. xadiidkuusa daciif weeyaan. qaala baabu wuxuu ku saabsan yahay fi lmanni, in lagu mana sheegto oo laiskaba cafiyo cala alasiiri, qofkii lasoo qafaashay bigayri fidaayin, asagoo waxba lagu furanin, asagoo wax xoolaa laga qaadanin, la dilin, iska sii daayo. intii la qabto la yihahdo kac oo kusii daynay. taana haddii waxaa weeyaan waa ixsaan iyo samafal waayo, ayaguna inay dhaqankaasi wanaagsan muslimiinta oga daydaan, xagga kalena la tuso muslimiinta dabeecadooda wanaagsan iyo inay awoodooda ayna ku talax tegayn mararka qaar. xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa xamaad bnu salamata qaala anba'anaa haabit bnu aslam albunani can anas bni malikin abu xamsata albasri radia allahu canhu, saxaabiyu jaliil khaadimu rasuuli illah sala allahu alayh waalih wasalam, ana 80 rajulan 80 nin oo min ahli makata reer maka ah, yahabaduu soo hoobtay cala nabiy, nabiga calayhi الsalaatu wasalaam. nabiga markuu xudaybiye joogay, buurihii bay inti ka soo hoobteen bay nabiga calayhi salaam damceen iyo saxaabadiisii
xilli ayna waxba iska ogeyn qaflaa inay laayaan ballan baana jirtay iyo heshiis la kala galay habatuu cala nabiyi ku soo horteen sallallahu alayhi wasallam iyo asxaabihi min jibaali tanciim buurihi tanciim bay uga soo horteen maka duleedkeeda ahaa cinda salaati alfajri salaadii subax agteeda liyaqtuluuhum inay nabiga iyo saxaabada laayaan fa akhadahum rasuulullah nabiga calayhi salaam baa iyagiiba qabtay silman maasuuriina xaali kuwa la qafaashay silman qafaal nabigaa qabtay oo qafaashay oo silmigaasi bimacnaa asrina waa la yidhaahdaa bimacnaa inuu iska sii daayey oo nabadgelyo siiyey iyadana waa lagu fasiraa fa akhadahum rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam baa qabtay silman yacni xabis buu ku qabtay oo waa xabiso waa qabtay waa qafaashay faactaqahum rasuulu llah nabiguse waa iska xoreeyey calayhi salaam markuu qabtay 80koodiiba ayuu yihi kaca waan isii daynay faanzala allahu caza wajal ilahay baa soo dejiyey wahuwa ilaahay aladii waalihi kafa aydiyahum gaalada gacmahoodii reebay cankum idinka inaga qabtay waydiyakum gacmihiinana reebay canhum xaggooda bibatni makata maka duleedkeeda ama gudaheeda ilaa aakhir aaya markii ilaahay uu awoodi siiyey bacda farq oo ay ka adkaadeen muslimiintu ay adkaadeen kadib ayay iska sii daayeen iyaguna ilahay waa inaga badbaadiyey shartoodii taan marka waxaa weeyaan almanu cala alasiir waxba lagama qaadanin lamana laynin waa iska sii daayey qaala xadaثana moxamed bnu yaxya bnu faris الduhli qaala xadaثana cabdالrazaq bnu hamaam الsancaani qaala anbana macmar bnu rashidi can الzuhriyi can moxamed bnu jubayr bn mudcim can abihi aabihiis oo jubayr bnu mudcima ibnu cadiy bnu nufayl ana nabiya sala allahu calayh wasalam nabiga qaala wuxuu yidhi liusaara bader gaaladii beder lasoo qafaashay 70 ah asoo ka hadlaaya low kaana mudcim binu cadiy hadduu mudcim binu cadi ahaan lahaa xayan mid nool waa jubayrka saxaabiga aabihiise hadduu maanta noolaan lahaa uma kallamanii uu igala hadli lahaa fii haaulaa'i kuwan oo idhihi lahaa ii sii daa haaulaa'i kuwan annatana uraya waa gaalo ileerayna mushriku najas markaa taagan yihiin hadduu igala hadli lahaa kuwa uraaya gaaladaa uu dhihi lahaa waa qaraabadayda ii sii daa la adlaqtuhum lahu waa u sii dayn lahaa la adlaqtuhum lahu waa u sii dayn lahaa saasuu nabiga calayh isalaatu wasalaam mudcim ibnu cadina gaalnimo ku dhintay marka hadduu maanta noolaan lahaa uu dhihi lahaa nimankan ii sii daa waan u sii dayn lahaa buu yidhi maxaa yeelay abaal buu u galay oo nabiga calayhi salaam oo maka laga soo saaray oo daa'if tagay oo reer daa'if isku bandhigay oo yidhi war badbaadiya oo diintayda iyo muxuu aha islaamnimadan aan wadana dhexdina ka faafiyo iyaguna ogaba dareen oo dhagax tuur iyo majaaniintii iyo wax magaradkii ay ku sii daayeen oo ay dhaheen tuurtuura nabigana calayhi salaam isagoo aad u murugsan oo daa'if ka soo laabtay xadiidkii mashhuurka qisadii mashhuurkaheed markuu maka kusoo laabo damcay makana uu ka cabsanayo daa'ifna lagaba soo celiyey ayaa ninka la yidhaahdo mudcam binu cadiy oo nowfali ah ninkaasaa marka la kulmay markaasu wuxuu yidhi waxaad kusoo gashaa magaalada maka aniga magantayda kusoo gal waxa ku yeeri karaa wax ma jirto 10 wiil uu dhalay tuhub usoo dhiibay ayuu yidhi kaalaya moxamed baa marka magantayda iyo ku jireen marka magaaladii uu soo geliyey quraysh buu wuxuu yidhi ninkaa bannaanka ka mara aniga magantaydu ku jiraa nabigana calayhi salaatu wasalaam bannaanka laga maray ammaan baa la siiyey abaalkii marka maalintaa uu u galay buu nabigu calayhi salaam xasuusan yahay oo uu leeyahay asagoo gaala hadduu maanta dhiila ii sii daa waan u sii dayn lahaa buu sala allahu alayh waali wasalam oo wuxuu ahaa rasuulku wafi buu ahaa wafi qofka abaalka u galaa muunan iloobi jirin rasuul gaal iyo muslim qofku ahaadaba abaalkiisa iyo wanaaggiisa iyo waxgooyadiisa iyo waxtarkiisa intaba uu xasuusnaan jiray heerkaasuu nabigu gaadhay calayhi salaatu wasalaam marka xataa gaal hadduu ixsaan kuu sameeyo ixsaan buu mudan yahay hal jazaau lixsaan ila lixsaan ixsaanku ixsaanu muujazihiisu yahay iyo abaalkiisa baabu wuxuu ku saabsan yahay fii fidaa'i alasiir asiirkii lasoo qafaashay oo la furto bilmaali xoolo lagu furto oo la yidhaahdo naga maaratay asiirkiina naga qabsada xoolana nasiiya iyadana way bannaan tahay addoommo kalood haysato oo muslimiintu ay haystaan ama muxuuha gaalada laga haysto ayadana waa lagu tabaadul asra waxa la yidhaahdo waa la isku dhaafsan karaa qaala xadaثana axmed bnu moxamed bnu xambal qaala xadaثana abu nuuxin waslow cabdiraxmaan ibnu khazawaan abu nuux qaala anbana cikrimata bnu camaar qaala xadaثana simaak alxanafi simaak bnu waliid alxanafi qaala xadaثanii ibnu cabaas cabdullahi bnu cabaas radia allahu canhuma qaal xadaثanii cumar bnu اlkhadaab ayuu warramay buu yihi amiiru lmu'miniin abu xafs qaala wuxuu yidhi lamaa kaana yowmu badr maalintii bader markay ahayd fa akhada yacni nabiga calayh salaam ujeedaaye nabiga calayhi salaam
وقاتي وقالدي كفار قريش تاي تضباطا كالفداء فرشاء وكقاتي وأبو بكر يا النبي يا عمر با اسكوي من شورى قالين النبي عليه الصلاة والسلام ومن يا أبو بكر يا عمر لمن كان محان قصة مينا قال هذا الريال قريشين هذا وهاي بشارة إنه بس دولي أنت صار دباتا أنا ندب التاجن محان قصة مينا مانت مركز أبو بكر وحوي لمن كان وانا من الريال قريشين دم بريال با هذا أنا وأضياش ريركا عن حقوق فرشاء لك قادمه يعني فراه لك قادمه مركز عمر وحوي محي قولتها عمر والنبي عليه السلام وحوي عمر لمن كان يجا وسناديد قريش odayaashii quraysh ee dhibka badnaa wey waxay la tahay in la laayo oo weliba nin walbaba oo annaga naga mid ah mid qaraabadiisa aad gacanta u geliso aniga adii dhiibta hebel aan dilo abubakar hebel loo dhiibo nin walba ninka ugu dhowaa nimankan ayaga maantaan haynaaye aan layno ayuu yidhi aimatul kufri weeyaan marka nabiga wuxuu janjeeray dhanka abubakar waa ijtihaad oo wuxuu yidhi aan fidana ka qaadan iska banadayno raxmaddii nabiga calayhi salaam qaalibkaheed ayagana lacalla wacasa inay islaamka dhici karteen laakiin waxyigu wuxuu ku soo degay muwaafaqatan lira'yi cumar ra'yigiisa oo ah in la laayo iyo in nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo abubakar ra'yigoodii iyo ijtihaadkoodii naskii iyo adiladii daahirkeedii ay maaragtay laguba canaantayba maa kaana linabiyin an yakuuna lahu asra ayaa lihi munaasab iyo ma ahayn maa yanbagii an yakuuna lahu nabiga inuu ahaada asra xataa yufkira fi lard ilaa gaalada uu ka jilciyo oo uu maaragtay ka naafiyo oo dacfi badan u geysto iyo tabardarri badan u geysto inuu iska sii maaragtay fidye iyo xoolo ka qaata ma ahayn ilaa qawli lamasakum fiima akhadtum lowlaa muxuu ahaa kitaabu min allahi sabaqa hadduuna ilaahay agtiisa wax qoran oo horreeyey oo in qaniimada inii banaanaan doonto oo arrimaha haddaysa jirin lamasakum fiima akhadtum bali wixii aad qaadateen sababteed waxayna taaban lahaa cadaabun cadiim min alfidaa wixii aad qaadateen oo fidyihii ah ثم أحل الله لهم الغنائم إلهي وحو بنيي غنائمتي بو بنيي فكلوا مما غنمتم أي عندنا سودة إلهي وحو بنيي إسلام مالين تاسي بدر قلبت يديبا غنيمة وإني حلال أي إلهي سبحانه وتعالى إلا إنه مديه هو حلال وميهن حولا قاعدة لغا سوق هذا انتي اللي صار وريا النار سودة جيت دب كاسا بابين جري وقادة جري لكن إنه إلهي سبحانه وتعالى ضعف جينا يتبدر درتين ونقولنا حديثته وإني بنيي قال أبو داود حويري سمعت أحمد بن حنبل يسأل أحمد بن حنبل لو يدين بعد مقرأ مسؤول عن اسم أبي نوح عن عيسى فقال حويري ايش تصنع باسمه اسمه شنيع مقع اسم عبد الكفر مقع في عنين اسمه قراد والصحيح عبد الرحمن بن غزوان أيال هذا مقع اسم قال حدثنا عبد الرحمن بن مبارك العيش قال حدثنا سفيان بن حبيب قال حدثنا شعبة بن الحجاج الواسدي عن أبي العنبس واسمه عبد الله بن مروان عن ابي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل فداء اهل الجاهليه dadkii gaaladaha ee islaamka aan ahayn ee jaahiliyadaha markii la qabto furashadooda wuxuu ka dhigay yawm badr 400 oo dirham hadii marka waxa weeyaan 400 baasa daciifinaya inuu fidda laga qaatay waa sax laakiin 400 inay jirto صحيح دون 400 كان وصيح قال حدثنا عبد الله بن محمد بن نفيل قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق المدني عن يحيى بن عباد عن أبيه بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت وحيتر لما بعث أهل مكة مركي صادرين في فداء أسراهم أما أسراهم بصغر قار بدك تضباطك كالا فرتا لي أو حولا كينا مركز نمول بدك يسي حولا كتب كينا أو هالكي بالله يميد marka ay soo direen bacathat Zaynab binti Rasuulillah gabadhii nabiga uu dhalay Zaynab oo ninkeeda Abu al-Aas laga haysto badar lagu qabtay yaa iyadana waxay tahay anaga ninkeyga soo furano waxay heli kartay bay soo dirtay oo ay tiri gaarsiya lama bacathat Zaynab waxay soo dirtay fi fidaaya Abu al-Aas ibn Rabi' ninka bii jiray qabay bimaalin xoolo ayay soo dirtay lagu furto oo bacathat fiihi xoolahaasna waxay ku soo dartay oo kamid aha biqilaadatin kul laha gabadhu ay lahayd كوشاس وكانت أهل عند خديجة يا لها جرتي أدخلتها خديجة أيا جلسي بها قبلنا زينبا أي كوا أقل جيسي على أبي العاص بين أو أقل جيسي قبلنا مركا كورة خديجة لها جرت النبي الأول قال عليه السلام أو قبلنا زينبا مركا الأروسرة يا راسك الراعسي كوش بيصور راعسي وعلابتي مركا النبي قرت عليه الصلاة والسلام قالت وحيتني فلما رآها قلادتي مركو أركي رسول الله صلى الله عليه وسلم كوشي
رق لها وأوجل عي رقة جلاع شديدة درن أدب النبي عليه الصلاة والسلام أوجل عي حسوس لأنك كلامك خديجة لفيري حسوس وحسوسي قبل يسيها دي وبضعة منه وقيب النبي كمله عليه الصلاة والسلام لقى أبو هريرة إيا ظروف حالة ما أنت تاغن صعبك إيا وحاول لما النبي عليه السلام وجود مدع سري مركا آد بوجل عيو والله مارتي على الحماضي حالة قبل ناس وقال مركا سوحو يري إن رأيتم أن تطلقوا لها هذا ينقوا مناته يعني لنا إن خصب ما هيو صحابة بيقول هاي هذا ينقوا مناته أن تطلقوا لها إن أسيد دايسان أسيرها منك لقى سوق فاشي فراها كقادان وتردوا عليها أدو عليسان الذي لها كون شيء أي وضطنا دب لو عليو أدو عليسان دويني في عنتها ونبما لها هذا يديك ينقوا مناته أسلوب يعني الدبعسن وصحابتنا مشاعر توضيء إلى علينا أيوه dhankan kalena haddii ay muuqato sida uu nabiga calayhi salaam uga xanuunsaday xaaladda gabadha ayuu nabigu u ishaaray qaaluu waxay dhaheen nacam waan ogolahay nabi allow raalli baan ku nahay arrintaas nabiga calayhi salaam iyo duruufta ku xeeran intaba way xeeriyeen wa kaana rasuulullaahi sala allahu calayhi wasallam nabigu wuxuu akhada calayhi markuu gabadhii u celiyeybu wuxuu ballan oga qaaday oo ballan ninka abulcaas aha ayuu ballan ka qabtay akhada calayhi korkiisa wuxuu qabtay ballan أو وعده وحو يبوها أو ضلبي أن يخلي أو يخلي سبيل زينب ودد هذا إنه أسيدايه أو بنايه إليه حقيسة كبدا ودد هذا إياه بناه كمر إيسودا مدينة يقطع ما كبدا هذا ومسلمة فراه كقط تنو مركع وعدي يبلن أيو كلك علي ميثاقي هشيسنا وكلك علي أصبنا السبب بلنت أقصى حي وكصوم علي رضي الله عنه إنه كعنانا يمركوا فاطمة طبعا ولا جورسدو من waxaa jirtay qaraabo ah muxuu aan sadaq u aho gabadh iga guursaday oo war ii sheegay oo warkii ka dhabeeyay oo ballantii qaado ballantii oofiyay abul caas kan ku waday gabadha ay soo dir wabacatha rasuulullah marka asagana waa aqbalay gabadhii uu soo diray wabacatha rasuulullah dagaal baa hada jira hal xiirxiira la yahay oo dagaalkii badar baa dhacay oo isma arki karo marka gabadhii kaligeed buu soo diray niman buu markay yiri ka hortaga wabacatha rasuulullah nabiga calayhi salaam wuxuu diray zayd bin xaarithata iyo warajula min al-ansaar ayuu diray yiri ka hortaga oo faqaala wuxuu yiri kuuna bibadni ya'jaj meesha toga ya'jaj la yiraahdo halkaas toga ku sii gabada oo u sii jooga adawayeen arkina u sii dhawaanina hatta tamurra ilaa inaga soo marto bikuma labadiinan zaynaba ku soo beegan xilligaas soo socota halka uu istaaga marka fatasxabaha soo kaxeeya hatta taatiya biha ilaa ka keentaan gabadha sidii bay yeeleen oo marka gabadhii bay tabal u istaageen bay soo qaadeen arrintaana waxa weeyaan xaaladaha gabadhu safar maxram ma safri kartay waxa laga soo reebaa xaaladan oo kale gabadha nafteeda iyo diinteeda la cararayso cadow iyo dhibaatadii ay ka qaxayso oo dhibaato marka ma laha way safri kartaa wayna nafaheeda iyo diinteedana way la carari kartaa xaalad daruura weeyaan ama xaaja daruurada iyo xaajaadkuna waxa weeye tubiixu al-mahdhurat حدثنا أحمد بن أبي مريم قال حدثنا عمي يعني سعيد بن الحكم قال أنبانا الليث بن سعد الفهمي عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب الزهري قال وحجر وذكر عروة بن الزبير وحوشك أن مروان بن الحكم وتابعيه والمسور بن مخرمة الزهري والسحابية أخبراه عروة والربين أن الرسول الله النبي عليه السلام قال إنه حين جاءه وفد هوازن وفد منك غير هوازن مكة مع المسلمين أيها المسلمين قال كي قصرت كسديات بعد فتح مكة دحي حنين إن منكي رأي وازنة حب حوالة فربضان يدد فربضان ما لقى سوى قفاشي مركي حوالة يدد بقعنت لقى دقي يا ودياش دي بسوء بابولين مركا سيدنا إسلامي ماذا قال له حوالة يدد كان كور دورانه نبي قال يوم هذا يقوى مسلمين فسألوه حيوي ديستين أن يرد إليهم أموالهم إنه حوالة سعودية يدد كبا فقال لهم رسول الله نبي عليه السلام وحكيري معي من ترون waxaa macayga ahaaday waxaad arkaysaan oo sabyi iyo dadka la soo qafaashay faraha badan ee qaniimaha waan hayaa ciidanka faraha badan ee difaaca iyo dagaalka diyaarku way idinka inaga adkaadeen waan haystaa war run ah oo maamaanta ku kala bixi karaaye xaqiiqada dhabta ah ku wada hadallo waa habul hadithi war lagu sheekay waxaan ugu jeclay ilaa aniga asdaqa warka ugu run badan man ugu jeclahay faqtaaru doorta ima sabya ama xoolihiis doorta sabya dadkii way haweenkii caruurtii وإما المال ما حولها منهم دورته لا منهم دورته اسكو هري ميسان دوري توم بريم النبي سوغاي ولا بلا ما يمادان وضدك النبي قوسك النبي نوجيه عليه الصلاه والسلام
islaanta uu nabiga naaska nuujisay islaanta ayada xarima sacdiya la dhihi jiray ayaa qabiilka ka dhalatay marka wuxuu yiri bal xoogo u yarkaadi bal inay imaadaan ayagoo soo noqday way imaan waayeen markaasaa la qaybsaday xoolihii iyo dadkiiba kadib bay imaadeen marka nabigu wuxuu yiri xoolihii iyo dadkiiba la qaybsayeen laakiin hadda inii shafeece inii ergeeye ama xoolaha doorta ama dadka faqaaluu waxay dhaheen nakhtaaruu sabyaana dadkaan dooranaynaa xoolo sidin baa lagu helay carruurtii haweenkii iyo dadka noo soo celiye faqaama rasuulullah nabiga calayhi salaam baa istaagay saxaabadii dhexdooda intuu ka dhex istaagay khudbo fa ahanaa cala allah ilaahay buu ammaanay uma qaala amaa bacdu xamdigaa iyo hanahaa kadib fa ina ikhwaanakum walaalihiin shalay gaalay ahaayeen xarbiyiina haddana walaalay noqdeenoo muslimiin wey fa ina ikhwaanakum walaalihiin hawaazi haaulaa'i kuwana jaa-uu way imaadeen taa'ibiina xaala kownin taa'ibiin ayagoo toobadkeenoo muslimiina wa innii anigu qad ra'aytu waxaan arkay an arudda ilayhim inaan u celiyo sabyahum inaan dadki u celiyo ayaa ila qumanaatay faman axaba qofkii jecelo minkum idinka inaga mida an yuayiba inuu raalli noqdo daalika celintaas falyafcal ha sameeya nin khasbi ma lehe ninkii raalli ku ah iska soo celiyo wixii galay waman axaba minkum ninkii idinka inaga midoo jeclaada an yakuuna inuu haysto calaa xadihi nasiibkiisa iyo dheefta iyo addoommaha uu helay nasiib iska haysta ninkii rabana facala waa samayn karaa xataa nucdiyahu iyaah ilaa aan ka siino asaga min awali maa yafi llaahu calayna waxaa ugu horreeya ee ilaahay noo soo celiyo qaniimaah ayaan bedelkeeda siinaynaa qofkii saa rabana falyafcal ha sameeyo kii raalli ku aan kii kalena wixii marka aan hello qaniima aan intaas siinaan ka soo ceshanaynaa faqaala annaasu dadkiiba waxay dhaheen qad dayabnaa dalika lahum yaa rasuula allah raalli baan ka nahay waan ku qanacsannahay waan ogol nahay lahum ayagaan u ogol nahay daalika arrinkaasoo in dadkii aan u celinaa yaa rasuul allah rasuul allow meeshaad jeceshahay baan jecelnahay waxaad dooni baan doonaynaa sidaasaan kugu raacsannahay faqaala lahum rasuulullah nabiga calayhi salaam baa wuxuu ku yidhi innaa laa nadri hal mar bay isla bulaabeen raalli baan nahay marka xogta hoose iyo midka aamusan iyo midka qubuucda qaba nabiga ma kala oga wuxuu yidhi innaa laa nadri ma ogin man adina qofka idmayo minku idinka inaga mida minman kama garanayno lam yaadan aan idan iyo ogolaasho aan keenin ka ogol iyo kaan ogoleyn ma kala naqaano waa isku dhex jirtaan farjicuu laabta xataa yarfaca ilayna ilaa ay warka noo soo celiyaan iyo warbixinta iyo riboodka dhabtaa curafaa'ukum odayaashiina jiifafkaha amrakum amarkiina ilaa ay noo soo celiyaan ilaa ay amarkiina noo soo celiyaan odayaashiina isoo xuuraami doono qows iyo qolqolo oo ahli doono curafadu waa dadka qabiilada la dhawey ama odayaasha farajaca annaasu dadkii waa laabteen wa kallamahum waxaa la soo hadlay curafaa'uhum curafadoodii baa la soo hadlay meesha curafaa'uhum soo maha ya laga khalday curafaa'ukum buu ileeyahay wa kallamahum curafaa'uhum baa la soo hadlay fa akhbaruu curafadii waxay soo sheegeen oy keeneen annahum ayagu qad dayabuu inay raalli noqdeen oo waadinuu ogolaadeen raalli baan nahay dhewaan ogolaanay قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق المدني عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده في هذه القصة قال وحويه عبد الله بن عمر بن عاص وقال الصحابي فقال رسول الله نبي عليه السلام وحويه ردوا عليهم علي النساء وين كوضا يوامناهم عرور طوضا حوليس اسكايستا فمن مسك قفك كدغا بشيء من هذا الفي xoolahan dadkan ayaga ah qofkii ku dhagaa fa inna lahu wuxuu leeyahay bihi bibadalihi badalkiisa calayna korkaanaga wuxuu nagu leeyahay sittu faraa'ida lix qaalmood ama faraa'id yani geelo iyo xoolaha qaniimada laga keenayo iyo zakada kuwa laga keenayo waa faraa'id yaa la dhihi markii dambe caan buu noqday lix neef baan siinaya min awali shay yafiihi allahu tacaala calayna wuxuu ugu horreeyay ilaahay noo soo celiyay uma dana yani nabi sala allahu alayh wasalam markaasuu wuxuu ku dhawaaday min baciir neef geeloo meeshan jooga فأخذ وحو قاتل وبرة من سنامه وبرة يعني دفتيسا iyo timihiisa iyo kuruska neef geelo meesha fadhiyay iyo kuruskiisa tuu laacaybu wax yar oo duf oo ka saareed ka soo qaaday ama timaa kuma qaala wuxuu yiri ayuha naasu dado innahu shariya laysa li imasugnan min hada alfay ghanimadan xoolaha faraha badan ay qaybsateen shay waxba kuma leeyahay anigu wala hada intan oo kala xataa kuma leeyahay warafaca intu kor u taagay isbicay laba safarad illa al-khumus khumuska mooyeen khumuska oo shamintii loo sii qaybiyo meesha shanaad ilaahi wali rasuul lagu qurbo ay noqondo kuwaas mooyeene qaniimadu waxba igama soo harin waa wada qaybi wax Allah waxaan hayo dhan idinka idin qaybiyay qaar baa boqol la siiyay geela boqol geela ragga qaar yaa loo qaybiyay wax ari aan ka haysta ma laha warafaca isbicayhi ila al-khumus intu gacmaha kor u taagay ayuu wuxuu inta waxa wala hada inta xataa aan haystay wabarka irtiga korkiisa ka qaaday ee dufta xataa igama soo gaarin ila al-khumus خمس مويين والخمس خمس كينا مردود عليكم إذن كان يسوع عليه قرابتي ابن السبيل كيني يقين قوماني وحسن كل عليه فأدوا الخياطة
فأدوا قط وبحية وها خيامنا الخياطة دنتا يوال مخياطة إربضة انت إن لك حتى يلا خيام فقام الرجل نبا يستاغي في يده قعدتي سكوها يكبة عن طوبة من شعر انتماء من حوى عن طوبة انتماء شعر يعني ريها دفته رويه فقال وحود أخذت هذا انت شعرك وحان قاضي لأصلح بها إلى كوها قاديستو بردعة لي قبط الآن لها بردعة وبالك أورتي يدميرها انت وليس كلا سارق وحيا لك كلا سارو أيا لي هذا قبط الكرباش وحبا جرجري كاس أيا رميرا مال كجاج مارتي كقسم هيستو يقد اللحظي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجري أما ما كان لي حضاتري انت من هيا أما ما كان وحي قصة هجاجل لي أنا ولي بني عبد المطلب فهو لك هذا عسكري أنا بني عبد المطلب وحي ترى حاجة عنك حكتا أنا ولي وكوع في الني لكن ذاتك كلام أنا كوع فيان ذاتك صار قرمود أحمر وقف وقلت مركزوا فقال لي أما إذا بلغت هذي قاعدة أنت يراد عن هيئت ما أرى وحنا لكم هل كبرت هذي قاعدة فلا أرى لي حاجة كمله دن كمله فيها كبضا والنبضها وسطوري وقنيمة حواليه يكون احتوري marka yaani xoolo ummad ay wada leedahay biidrihi mooyeen ku ogolaadaan mooyeen lama tasarrufi karo wax yar Allah ka dhigay iska isticmaali karo lama maamulan karo wax yar ma Allah ka dhigay inay ku idmaan mooyeen oo diibu nafsi qaali kaaga noqdaan mooyeen xoolaha ummadda iska leh naam kuma tasarrufi karo qofku baawo fi iimaan iimaanki ninkii madaxda hogaamiyaha ciidanka ahaa oo yuqiimu nagaanaya cinda dhuhur markuu adkaado calal caduwi cadowga korkiisa ka adkaado ku nagaanaya bicarasatihim ayaga goobtoodii markii uu dagaalkii intuu dhammaado uu guushi iyo libintii helo in meeshii gabagabadaheeda dagaalku ka dhacayo goobtii uu 3 bari joogo asagoo tusaaya inuu adkaaday wixii wax isku hayana diyaar u yahay marka gaaladu waxay ku sirridaysaa rucbi iyo argagax iyo cabsi kale ku ridaysaa oo ninkii wali weynii taagay halkii buu sii sugayay marka la dhaho wali dad kale naga oskagan oo mad kale naga maarta sababsanina dhaafiya ay leeyeen way si carraya sidii dagaalkii markii Uhud oo kale qaswat Uhud oo nabiga kaleey salaatu wasalaam ka daba taga u dhiijay marka asaga oo xaalad culus lagu jiro oo 70 saxaabi ay maarta dhimaad shahiiday oo intaasna ay dhaawacmeen nabiga buu dhaawacmay yiri ka daba tagay si gaaladu ay ogaadaan inaan absi ay lagu jiro markaas ay hore u siyaaceen قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن ابي معاذ وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الروح بن عباده قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده بن دعامه عن انس بن مالك عن ابي طلحه رضي الله عنه زيد بن سهل رضي الله عنه قال وحيري كان رسول الله نبي عليه الصلاه والسلام وحوها اذا غلب على قوم قالها دو كقالب نقضه كادكادو اقام ونجاجر بالعرصه ماشي دغالكو كدحاي 3 بري بو جوغي جري قال المثنى اذا غلب قوما احب وحجلاجر يقيم انه كنا هذا بعرصتهم 3 وسيد بدر بعضه كان غزوه بدر ضباط مكن لايبو 3 بري سيجو قال ابو داود حوير كان يحيى بن سعيد حوا يطعنه كي ضعنيا وحضور جري في هذا الحديث حديث كان لانه حديث ليس ما من قديم حديث سعيد بن ابي عروبه حديث سهري عن قتاده وكوريه معها لانه تغير وادور صومي سنه 45 ايو دور صومي ولم يخرج هذا الحديث الا باخره يعني مركو دنبيسي ممارس حديث كان كقاداي ورو دور صومي وقتاده بن دعامه واسكو دردرمداي دك كقاداي بو اها نعم لانه سعيد يكون قريصا سعيد كان لانه ليس من قديم حديث سعيد عن قتاده لانه سعيد تغير سنه 45 افرطن يشنتي ايو تغير كل عايز صورصون او اختلاف ولم يخرج هذا الحديث الا باخره اخر عمره يسوم الحديث رسغا سو ساري marka بعض الاختلاف marka قال ابو داود حير يقال ان وكيعا حمل عنه في تغيره قتاده عليه وكيع بن الجراح ايا وحو كقاday oo ka wariyay سعيد بن ابي عروبه waqtigii taqayyurka uu ku dhacay oo dadku wuxuu kamid yahay intii taqayyur xifdigiisa uu ku dhacay wax ka wariyay buu kamid yahay isaguna saasuu kamid yahay naam marka lama qaadanayo baabun fi tafriiqi bayna as-sabi dadkii la soo qafaashay oo la kala farqiyo islaanta iyo ilmaheeda iyo caruurteeda iyo in la kala geeyo oo naagtina uu nin qof qaato caruurteeda meel ay shaqaaq dhahaan lama ogolo ilmaha yaryar hooyadood aan ka maarmin hadii waa in israaciyo حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن الحكم بن عتيبه عن ميمون بن ابي شبيب عن علي بن ابي طالب
أنه فرق وحوك لقي بين جارية الدنيا وولدها إلى المهدي فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ما كرب عن ذلك تفريقاسي ورد البيع بيع وعليه أو أدونتي كلا قضي عرورتي. قال أبو داود وميمون لم يدرك علي ما بسوى قارن قتل بالجماجم بالودري والجماجم سنة 83 ويان أدب قدم به علي رضي الله عنه بشريسي. قال أبو داود والحرة حرضنا سنة 63 أي دعضي حرضنا وحيد واقعات دعضي حل يزيد بن معاوية وكل معاوية بن أبي سفيان أنت ويلكيس يزيد ودر دارمي أيا مكر هير مدينة كحاسي قروبين وركبوا مغرعيدا عراق وكلا يميدوا حب بدن أيو وير قاضي الشاميو مركا دد بدن بو كلها ماشاسو يعني مسلمين وين ما كان دعضي سنة كصدح الحدانات أي لهين. وقتل ابن الزبير وحال دراسة ما كقبصري سنة 73 أيام الدري. باب الرخصة في المدركين يفرق بينهم هذه اللي يرعوين يعررت هذه هي المهدي يعني كلا فرقين ذاتك هو ويناك ورن ويصلين لكن هو ناقوين وقشانتي هو يلد أو كان مثلا الرخصة واللي قال في المدركين كوي قان قاري يفرقوا إلا كلا بينهم نحضوضه. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة عن قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي قال خرجنا مع أبي بكر الصديق بن عيسى رضي الله عنه وعن بحني وأيضا كي للدريب وأمره النبي عليه السلام أمره أبو بكر كاسب أمير كدقي علينا كان رسول الله النبي عليه السلام بأمير نوغدقي فغزونا وادوا لي فزارة لمن رير فزارة اللي يراهضه وقبائل شي عربتا كميدة أيام كدوا لي فشرنا الغارة دقال كي بان كو قادني شرنا وان ويرري وان كو ويرري الغارة دقال بان كو ويرري وان كو قادني ثم نظرت مركا محامر كيبي إلى عنق أي جماعة كوح لقنه الله بحضي ومن أنا أستاذ كميده فيه الذرية أي كميتها الرورتي يو النساء وينكي أو يا عيو من عايو مالو سيدنايا بور حليد يو مال نوعها بوران أيسكا قبتام أو قلة سيجنا يعني كبير وين عرور فرميت مركزان جاني بير بسام الليل أيام تو كوجاني فوقع الليل وحود عي بينهم أياج إيو وبين الجبل بورتي ربين الجلام إيو أياج دحوض بو ليبكي بوس كيرو ككعي مركزين فقاموا استوين ويستاجروا أركان إنهم بقصوا الردي فجيت بهم وانو ما رأيوا طبعا إلى أبي بكر بانو كياني جيت بهم وحنو كياني إلى أبي بكر الصديق فيهم وحكوجت امرأة النار من فزارة ناقير أوائل الفزارة وحكميده يدو عليها قشع قبطة من أدم يعني مقار هي نضع هي مصلى مقار لقى السمي أي قبطها أو درهان قبطها وهو معها وحيوضتها بنت قبل لها يا شيء من أحسن العربي عرب قبلها وقرح بدناه أي وضعتها وناقوينه فنفلني وحايسي مكان كان أبو بكر بنتها إسلامتي قشعي قبتي قبل ده يدخلوا ضبط بويسيو يرعدي قاضو نفلي فقدمت المدينة فقال المدينة صوغ علي بويري فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم نبقى إلى كل ما وركب على السيي سيدي وحلوقة بسدي قبل ده أنا وحكوها يكتبها لي للصحابي سلام بن أكوع رضي الله عنه وأرضاه يكوها يكتبها لي نبقى إلى كل ما فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وحويري لي أنا يا سلام أكوعو هب لي المرأة سلامتك وقصوا هاجتي يقصوا وريج عن إيه به نبقى وحور ربعينه الضوء كفرت الله يستوى مسلمين تلاقيه يستوى عوجة أسراء لاقيه يستوى مسلمين تا أيوة الضوء الربعينه كفرته هب لي المرأة إيه به فقلت وحان ربي والله ما كنت أرتي لقد عجبتني وهي عجب جلسة قروح ذا ذي وناجي ذا قبضنا والله أشقراري ولي وقلت أنتهي وما كشفت لها ثوبة مربنا كما فايدين ولي أو حيكون جرتها مرحلة الاستبراء حين اللي استبرينا إيه وإن مركز على سواق بسدالس كما تجاي لما صور ريسان إيه وإلا أوجاد الرحم كذا إنه بريء وحكون جريد وحيد يحصل سقاط كله وما كشفت لها ثوبة فسكت وإلى مسنبك حتى إذا كان من الغد بريء كلا جاري لقيني رسول الله بإلى كل صلى الله عليه وسلم في السوق وترى واركي فقال لي وحوير يا سلامة هب لي المرأة إيه بي أدونتي إسلامتي لله أبوك أيوه لله أبوك هذا اللي يجرينا سيدا قسم وكلاه أيها إلهي بوصلنا لأباه فقلت وحاني يا رسول الله يعني إلهي ما أسكره أبوك أباه فقلت وحاني يا رسول الله والله ما كنا أرتين ما كشفت لها ما بفيد فهو مريه وهي يضوسي لك هذا كوهي بيسي وزعيس فبعث بها النبي عليه السلام بقبض أدري إلى أهل مكة كان مكة وكفار ومكة قالها ومسلمين هيستي وفي أيديهم كعمه وضنا وكجرت أسرى ضل قفاشي أي أدري ففداهم بتلك المرأة نقطع يروك كسر فرتي رسولك صلى الله عليه وآله وسلم مركز لانتي يقبض لي يهو يدد وقال كلا فرقين لأنهم مدركون
وضوء وين وقاقار أنت وشهد باب في المال حوله يصيبه العدو حوله أو يصيبه وهلا العدو عدوي من المسلمين حق المسلمين ترى وكقادنا أيضا قال ذي وكذا عيسى مسلمين تحوله حوله المسلمين تك عند قال هذا قال ثم كذب يدركه صاحبه من كير هاي مسلم كا وحوله سهلا في الغنيمة قال له أنت نقول رواه العلي حول لك سوى غنيمة يستي حوله قال لك قاتين باب كل غنيمة كل حجرة ما غنيمة دي بكمل نقارة قيمتي سوى مؤركي وحكوسها جاكو نزع سجع إسكاله مطلقا هي ما هي مطلقا ما هي قبل القسمة هذه أنت اللي قيبسن وجارو أسجع أحقنا بدن حديث بعد القسمتها أنت اللي قيبسن كذب غيمهم بحين يا وعقيمه يسوي ما لقسين يا مالك أحمد بصير قبل قولك تنبه قال حدثنا صالح بن سهيل قال حدثنا يحيى عن ابن أبي زايدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن غلاما الضر قال ابن عمر عبد الله بن عمر ضانوا لها يا أبا قبلونتي إلى العدو حق عدد يقولون وقلي فظهر عليه المسلمون مسلمين تبقى أوعد كاذي وغنيمة السواق بصديبة أدونك اللي سواق بتي فرده رسول الله أدونك النبي عليه الصلاة والسلام إلى ابن عمر بوعي ولم يقسم من قيبين وقيبتي بركة مدعين أما قيبه مركا لقيبين هاي لو ما دارين حوله سويانا سيجارة دورت سقفت الله صار وحصوا علينا غنيموي قال أبو داود وقال غيره رده عليه خالد بن الوليد بوعي مركا على سواء يقفت عليه ما خالد بقى مسوا النبي ويسكريه فرس يا أضون يو أبيك لها حلق النبي حلق خالد أيك لها قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري والحسن بن علي المعنى قال حدثنا ابن نمير عبد الله بن نمير عن عبيد الله العمري عن نافع عن عمر قال ذهب فرس بات تجي له ابن عمر ولها وحقها وسكبوا ما كاسو قالوا قالي فأخذها عدو بما قبصي فظهر عليه محوات كذا قال لي المسلمون مسلمين تبكات كذا فرده عليه ووسع عليه في زمن الرسول حلق النبي غيره وأبقى عبد نظام بعدونتي له سبق إليه فلحق بأرض الروم لوكي غير الروم قال لي بو قالي فظهر عليهم المسلمون مسلمين تبكات كذا فرده عليه خالد بن الوليد ووسع عليه بعد النبي قداشيس عليه الصلاة والسلام لبقي سويان باب في عبيد المشركين في عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين فيسلمون في عبيد المشركين قال هذا أضوامه هذه أيوة أضوامه يستاني أو أنت سواء عربان يلحقون سوى هليري بالمسلمين مسلمين تأسوا الجري أو فيسلمون التوحيد الإسلامي قال لك أصلا فكذا المسلمين يقولوا ماذا يا شهاتين من لو علينا يا أضوامه هذين صاروا أنت من على مثل مسلم ويانا مسلم قال له علم هاي سيدا ما صح حدثنا عبد العزيز يعني ابن يحيى الحراني قال حدثنا محمد يعني بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن منصور بن معتمر عن ربعي بن حراش عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال خرج وحاب حي عبدان بكسر العين عين الله أصلا بعض الريبه عبدان وجمع عبد ويكس أي نقول إنسان خرج عبدان الضوم أي صباحي إلى الرسول إلى النبي حق سيء معذير يعني يوم الحديبية maalintii Xudaybiya heshiiska iyo sulxiga u dhacay adooma soo goostay ayaa nabiga xaqiisa soo aaday qabla sulxi intuuna sulxiga iyo heshiiskiiba dhacin عبدان صح ما عبدان جمع جمع غير صح الشيخ هاجرو بكسر العين والباء وتشديد الدال أيكون مبدنا إياها مركا نبي عليه الصلاة والسلام أي وإمادين قبل الصلح فكتب إليه وحق النبي قصة قري ورقض مواليهم كوي إسكالها يا قريش تهابا ورقض النبي قصة قري فقالوا عيدا يا محمد والله ما كنا رنا ما خرجوا مين أصابح إليك حق هذا رغبة شعال أي في دينك دين تلو هيان شعال دين تلو هيان ومن إيمان ومن إيمان وإنما خرجوا وحيصابحين هربا كعرب من الرق أضون ما كعرب هيان أضون كعرب ويان الدين شعال كما فقال الناس ضد وحيدين ستقول ربي شيء يا رسول الله ردوهم إليهم ردوهم علي الربي شيء يعلي هو الإسلام فغضب الرسول الله نبي عروضي نبي ظاهر قام حكمه عليه الصلاة والسلام أصل كشريعتنا واسع إيمانيات كي قلبي يقفك وحكون جرا لما مارت الشيء كان لقبل الجواب كرم مركا فغضب الرسول الله مع عروضي عرض أي وركاس وقال وحيري ما أراكم إنما أرك تنتهون إلى هريسان يا معشر قريش إن الرماهن أو كهريسان بقى حمضة أرنت آيات كهريسان وماركم حتى يبعث الله إلى إلهي كسو صاروا عليكم قركينا منقف يضربوا قراع الرقابكم قرتينا على هذا دين ترئيهم شريعة إيا الردين توحى وضاني لقن حماه
أرنتا إن ولد قال أن يرده وأبا وادي رسولك عليه السلام أبا وادي أن يرده منه عليه وقال وحير هم عتقاء الله وإلهي كو حري عز وجل عتقاء الله إلهي بحري markay muslim noqdeen ayay gaalada gacantooda ka baxeen oo ka soo fakadeen oo imaadeen innaga ay noo imaadeen ayay xoroobeen horay bay ka xoroobeen baabu wuxuu ku saabsan fi ibaaxat dacab cuntadii oo la badeeyay baard cadow ardaydiisa laga helay cunto bisil iyo raashin iyo wax markaas cunto ah oo hilib oo kale iyo waxaas oo kale hadii gaalada dhulkooda laga helo qaniimada intii lagu soo daro hal qaybiyo qaniimada laga warsugo la dhig mahaye dadkii helay baa iska xuraaya kuma jirto waa iska fududeystaa حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري وإبراهيم بن حمزة النهاية قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عبيد الله أنس حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن جيشا عيدا يا غنيميستي في زمان الرسول الله حين نبت عام عنده قارب وعسل يمحوها ملك هي هلين فلم يؤخذ منهم الخمس لما قادم وقنيمة حاله ولما دقمينه شن ميلو كدغا او ميشا شرع الخمس كدغا ميشا كان 4 الخماس هلو قيبيه لما دهينه انت يا ملب هدي تاي وخيلو ما اسك دوقاي اسك استعمالاي نعم ابراهيم بن حمزه الزبيري ابراهيم بن حمزه بن محمد بن حمزه بن مصعب بن زبير زبيدي ايوه قال حدثنا موسى بن اسماعيل والقعنبي قال وحيدا حدثنا سليمان بن معتمر عن حميد عن ابن هلال عن عبد الله بن مغفل قال دلي جراب من شحم دلي وحال سور رارعيه جراب أهلي وأول مقار لغا سميه من شحم برور تفل بسيه يوم خيبر ما انت خيبر يا حسني اي قالوا كجيرين يساو وسو فورريين إلا برور تمعنا يهود وكحرام ما عنده waxyaalaha iska day jireen kamid wali ay dhaqankeeda haysteen shariicadooda iyo diintu waxyaalaha ka haysteen kamid tahay bururta waa ka xaraan marka baalka ohliga qandiga oo barura yaa la soo raariciyay darbigiisa laga soo fooriyay muslimiinta iyo ciidankina xagga loo darbiga ka taagan yahay qaal faataytu markaasaan u imaaday faltazamtu markaasaan isku duubay waagibasa u qabsaday biyo laba gacmood qaal thumma qultu markaasaan iska hadlay oo dhawaaqay biyo waxaan iri biyo la uqdi siin mahayo min hada barurtan hadan qofna اليوم ما انت شيء waxba ka siin maayo qofna wax ka siin maayo iri biyo oo yaani baahi darabna way jirtay saxaabadu markuu ku booday buu wuxuu yiri yaan qof kale uu soo dhawaan markaas uu dhawaaqay oo yiri waxa wax ka siinay maanta ma jirto qaala faltafattu markaasaan saa u fiiriyay dhinacayga oo fa'iidaan rasuulullah nabiga calayhi salaam waxaan arkay tabassum muusoon ilaya igu muusoonaya oo xaaladda ninkaas iyo sidoo uu dhawaaqay hadalkiisa iyo muxuu ahaa masaladii ahayd ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة آيات القرآن كده سيدو ما أنت قاعدة إيه ظروفتها هي ستدرتك أي حتى أرنتاسي بس قاعد هذا وصل دعوة ويدي النبي عليه الصلاة والسلام باب في النهي الريبتان عن النوبة باب كان يسكر ريبة يوحل بابه إذا كان في الطعام منتظر هديته قلة وحير في أرض العدو لا جاهل لك عدو حبوا الراشين وضدك عن فربنا هدي له إن لبابه وأرجي دبل الجورع وهيب كل سكوا حيا وحيا الله قيب سنين تاسوا الذي حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير عن ابن حازم عن يعلى بن حكيم عن ابي اللبيد لا مزح بن زياد البصري ابي اللبيد قال وحير كنا مع عبد الرحمن بن سمره او عبد الرحمن بن سمره يا معي ساهل بكابل مقالة كابل اللي هذا كابل ومد هذا عن مقاله من قاس افغانستان عاصمه هو ويان كابل عاصمه افغانستان اللي صحابه الجارين مركا كابل بان جوجني فاصاب الناس dadkii waxa ku dhacay asaab الناس dadku waxay heleen غنيمه ayay heleen xogow fantahabuha markaasay boobeen xogow ku fileen markaasay deerin walba uu yiri yaa laga gaarin فقام واستاغ عبد الرحمن بن سمره خطيبا حاله خطبين فقال حول سمعت الرسول الله النبي عليه الصلاه والسلام بان مقرو ينها ريبا عن النهبه بابك فردوا وعلي ما اخذوا وحي قادين فقسمه بينهم كسو قيبيي كاس دب لو قيبسداي سي عداله وناسن قال حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازي حدثنا أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان فيروس الشيباني عن محمد بن أبي مجالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال قلت وحانا هل كنتم تخمسون خمس باكل بحجرتين يعني طعام عنتظر عنتها هشام ما لا قنيمة سيدة قنيمة ولا دغ بجري شان انت الواقع ميت الشناد وخمس كي ماشى فرادنا 4 أقماص dadkii loo qaybi xasaba si dagaalka ay ku galeen oo qofkii raajilka aan hal saamay kii faaris kaana laba saad مساسة ديال ترتل عنتظر في عهد الرسول عليه النبي عليه السلام فقال وحير أصبنا دعاما يوم خيبر
maalinta khaybar baan cunto helayo fakana arajulu yajiu ninku intuu imaado fayaakhudu minhu ka qaadan jiray miqdaara maa yakfii wax ku filan uma yansarifu waa iska tegi jiray waxba qaniime iyo khumus iyo lagama bixin jirin cuntada intii loo imaado minuba in ka goosan jiray oo ka qaadan jiray قال حدثنا هناد بن سري قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي عن عاصم يعني بن كريب عن أبيه وكريب بن شهابة عن رجل من الأنصار من الأنصار قال وحير خرجنا مع الرسول إلى نبي عيسى عليه السلام معنا في سفر فأصاب الناس وحقول حاجة قاعدة درا شديدة الضرر وجهد المشقة درا ويقول حي وأصابوا غنما أري ويهلا فانتهبوها وأنا في الليل ومركا إن يهيرهان كديتان طعام يحنت كديتان رمان مركا سي بوبينو فإن قدورنا دريها نجي ولا تقلي شمالنا wixii inta arigitaan boobnay aan qalqalanay oo deena hilibkii ay dariyuhu shubaalinayaan oo ku jiraan walina bislaani idjaa rasuulullah nabiga kaleey salaatu wasalaam baa yimid meesha soo socda ala qawsin qansadiisana ku cuskanayo oo ku tiirsan fa akfa wuxuu gambiyay oo daadiyay qudurana dariyaha nagi bi qawsi qansadi ayuu saas ayuu dariyo dabka saaran dhadhaara saaran ayuu saa uga tuuray markaasuu daadiyay marka inta kuma dhaafine thuma jacala wuxuu guda galay يرمل اللحم إنه هيبكي مرمرنا يا وكل ريحة بالتراب عرضه ولي بس أقول حق الجريء سألنا وقال صابحين ثم قال وحير إن النهبة بوركة ليست بأحل كما حل شرا من الميتة بختي أو إن الميتة بختي ليست بأحل كما حل شرا من النهبة بوركة يعني بختي يوباب هذا مكان الدوانة إن حوالي بطا يسكول هذا آد بوطو إن بختي عنطو وما مكان الدوانة الشك من هنات كالهور مريء مشبه من شبابية باب في حمل الطعام بأرض العدو حمل الطعام انتظر أو لقاطه من أرض العدو لقاها لي وانتي لقونا وليبا لصاحبه أو لقاطه إلى عديه لرأي معه تايدا عدي مكاسي ونسأل الله كيف صدق بن هبية إلى نحين لمالا حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن من حريش الأزدي حدثه عن القاسم مولى عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا ناكل الجزر يعني الجري يعني جزرك وسيارة بالله حركة الجزور والجزر الجزر بركة جزرك وحيدها وهرب كأرجع ولا جورع هرب كيسي جزور دي لأن هرب جيل بنقرأ في الغزو دولان كان عن الجري ولا نقسمه ما نقيمين جرين حتى كنا وحاولنا لنرجع إلى رحالنا وريها نجي ومنازلها نجي مقالة مدينة كسر نقول جري وأخرجتنا وحيا ولا شانذي يقوم بيا شانذي منه هرب في جزركها مملأة لقد بحيي أخرجته وحويان وويلشا وضد الوقت يا أخرجنا هذا وأخرجتنا أنا قم بها نجي ويلشا نذنا منه من الجزر هرب كي أما جزور كي جيلة مملأة لقد بحيي وظنه ضعيف يا حديثه باب في بيع طعام منتظر الله قال إذا فضل عن الناس أكثر كبير هذا في أرض العدو لقاها لي منتظر أرض العدو لقاها لي ومنه بالنسيب كي أدوها له وحي بيراده ذاتك كلا ينبه هنين قفك وإبسكرة ساس قوله قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا محمد بن مبارك عن يحيى بن حمزة قال حدثنا أبو عبد العزيز شيخ وأضي من أهل أردن إيش أردن إلى كذا أردن وشام عن عبالة بن المصيب كورب عن عبد الرحمن بن غنم قال وحير رابطنا مدينة قنسرين مقالة قنسرين يراهو أيام فريساني أو مرابطة iyo inaan maartay jihaadka dartii aan u fariisano ayaan xabis iyo xumuha dhufaysiyo galay muraabidku waxa weeyaan waa goobta u horeysay ee furinta ah oo dagaalka maartay dhufaysiga laga qoto gaalada loo fariisto ayaa la yiraahdaa ribaadka raabadna madiinata qinsiriin ayadana waa shaam bay ku taallaa maca shurahbil bin simt anagoo la socona saxaabiga shurahbil bin simdiya falama fataha markuu furtay magaalada qinsiriin qabsaday asaaba fiha ghanama wa baqara ari iyo lo ayuu meesha ka helay oo muslimiinta ay gacanta ku dhigeen faqasama fiina daa'ifatan minha qayb kamida intaan qanimadii la qaybinin ayuu yiri intan ku sii qadeeya ari iyo neef loo ayo wuxuu yiri qadadiina ka dhigto sii cununa sii gowracda faqasama fiina daa'ifa qayb marta noo qaybiye minha kamida arigi iyo waja'ala baqiyata inti soo hadhayna fil maghrib qanimadii ku daray wuxuu yiri waa la qaybinaya sidii caadiga qanimadii loo qaybin jiray falaqiitu mu'aad bin jabal baa la kulmay buu leeyahay inka cabdiraxmaan bin qanam leeyahay ayaa xulay mu'aad bin jabal baa la kulmay فحدثت وأنا شيء ورك أرنت وسميه شرحبيل بن السمت يا قريمة داس أنت ونقرأ سيحنا يرنت كنا قريمة دي كدري فقال معاذ حجر غزونا مع رسول الله نبي عيسى دول عليه السلام خيبر بن كد دول فأصبنا فيها غنما أربا كيل
فقسم فينا رسول الله نبي نو قيب طائفة قيب كميدة ويرعونا وجعل بقيتها في المغرب بقدري دبا الله قيب صدونا مناسبة حديث الترجمة ما عدا إلى بيع الطعام إذا فضل عن الناس في أرض العدو هذا بيعكم ما عدا مثلا لكن مناسبة وحالله كرا أو لا فهم كرا كل هذه قسمة أي بناناتي قنيمة قيب كميدة قف ضدك الله قيبيه قيب تكلم هذا قنيمة الله كهذه الله تبديه هذه قسمة بناناتي قف وحي قسمة الله سياسة إسكره والمالك يتصرف في ملكه كيف شاء ويبسم كراه باب في الرجل ننكي أو ينتفع كل انتفاع من الغنيمة غنيمة بشيء وحكمله غنيمة والله قيب سنين أصلا الله السنين وحبا اسكي استعماله قاعدين سرايا أو تركي اسكي حرايا أو أرمها سلامة أو قرا إلى الله قيبيه قال حدثنا سعيد بن منصور وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال أبو داود وعيري وأنا لحديثي أتقن عثمان بن أبي شيبة حديث كيسان كحفظ بدنا هذا سي إتقاني من حديث سعيد بن منصور قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم عن محمد بن إسحاق المدني عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق مولى تجيب عن حنش السمعاني عن رويفع بن ثابت الأنساري أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحير من كان يؤمن بالله واليوم الآخر نك إلهي ما أنت آخر الرميسر فلا يركب ينفول دابة من في المسلمين مسلمين تفيق وذي كميدة غنيمة والله قيب سنين حتى إذا عجفها مركو ويت كدغو وسو مررنا يوغادين سنايو اي تبرنيتو تبرتيدا يراتو ردها الى وساعدنا في غنيمه كسو علي او يراد هذا ولا ما قيبين قيبتي بان هذا غيري ودنا ناف ولا عصب وكفيعا ايو ربا انو قاطو نافكي او سو ويديه او سو مارتي ضعيفينا اي كلحد سايون يري ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يلبس ينحل ثمر من في المسلمين بركي مسلمين تا اي قنيميستين فيغا كميدا يو اسك خيرنا حتى اذا اخلقه مركو دوك كدغو دوغيو رده وسعيدنا في غنيمه كسعديو سان يونييري يا سوق الى قيبتي زي كسو مارتي كسو هغاغيسو بابو وحو كسبسن yahay في رخصتي اوغلاشها لا اوغلاداي in la iska sii isticmaalo wixii qaniimadaha fi silaax hadii hubtahay hadii silaax iyo hubtahay inta la qaybinin hadaa silaax gaalada ka qabato oo ku dagaalami karta yuqaatilu bihi ku dagaalamay fi macrakada ila dagaalkii baa looga baahanayay qabla alqisma inta qaybta dhicin ka hor ayuu ku dagaalami karaa حدثنا محمد بن علاء أبو قريب قال أنبانا إبراهيم بن يوسف قال أبو داود وحيري هو إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي بقوله عن أبيه على أبي إسحاق السبيعي عمر بن عبد الله همداني قال حدثنا أبو عبيدة عن أبيه أباصر وعبد الله بن مسعود أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه أصلا تكسر شيء أبا حكم أبا كبر مقال قال وحيري مررت وحان صامر أبيه عبد الله بن مسعود ويانه قال وحيري عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مررت وحان صامري dagaalkii badar baa dhacay ragii baa nabiga meeluhu ku tilmaamay Abu Jahl ka lagu dili doona Umay ibn Khattab ka lagu dhici doona codba meesha lagu dili meeshii bay wada yaalaan marka qaarkood baa iyagoo dhaawac ah ayuu kor meelaya Abdullah ibn Mas'ud baa u dhaxmaraya marartu waxaan soo maray sarcadii iyo dadkii yaalay safka faida Abu Jahl baba sariicun lagdan ninka Abu Jahl neefka gaalkii weynaa ee malcuunka oo ahaa fircoon hada umma ayaa meesha asaga qandooda laba wiil oo yar oo reer Azaareeda ayaa ku boobay wali nafta kama bixin qad duribad waxa lagu dhuftay rijlu lugta ma dhaqaaqi karo lugihi baa warman la dhacay seefa laga dhacay halkaas uu marka fadhiya faqultu waxaan iribi ya adu wallah adu ilaahayow ya aba jahl banta abihiisa Abu Jahl nabi wixii Abu Hakam musliim jaras qalqaadi jiray ya aba jahl jahli iyo aqoon la'aankay isku timidow qad akhza Allah ilaahi wa duleeyay al-aakhirah ilaahi wa duleeyay al-aakhirah كذا متأخر كأ غير كهركة خير وناق ونبى كهري نين كذا حنو إلهي وكد الله قد أخذ الله إلهي واد الله الآخرة مت كذا ضب آخر كأ هو متقدمين مؤمنين أنا هين خير ونكذب داعي وإلهي وهو جيبي قال مركزوه حويري عبد الله بن مسعود نقول صعب الله كذا كنا وأبو جهل كو يقاني وعلق سعودي مارته لقى بقي جري لباتبي سيئو نبكو كيسان جري المسلمين السابقين ابن مسعود با كميدا رضي الله عنه نبي ومن دير دش لغا ساري ايو فيرنا ابن مسعود كما قادي كرو او كعبسنايا ابو جهل بو كعبسنايا لباتدو وغينايا iyo wuxuu u geysanayo marka wuxuu yiri dilba wax ka daranay nabiga kaleey salaam u qayliyo ha isku taabanin markaas uu faadimo oo nabiga gabadhiisa oo yar ayuu yiri nabiga kaleey salaam man dheer ba dhabar kala saaray kaale adaa gabadho lagu dhawaan karin markaas ka qaaday marka ninkii sidaas ah maanta Abu Jahl oo wuxuu arkay meeshan yaala naftana ka bixin qaala wuxuu yiri wala ahabahu inda dhalik
ما أنت سكيه بيسمى كما عبصر يجري ما أنت لأن مرة قاقي كاو لقيه مرتين لقول نفتي فقال وحجري مركو أنتو هذا الكاكوجري كي إلهي الدنيا وملعون كهاي ويجري عدو إلهي يا أبو جهل كما هذا لاي وحجري أبعدوا ما هو عن قفقه هاي يا أحمد مصغر قارة أساس قراية أحمد ما هو عن مرتي نافي أو عن مرتي عن كفقه هذي من رجل قتله قومه من قوم كيس أي دلين بان هاي ما وحكا دير بان أنا هاي وحكفق ميانا ما وحكفق أنا طبعا من قوم كيس أي دلين ونسميه فضربته مكاسا قلت بالسيف سيف غير داير عن أخبرنين أخبرنين من هيستي ينسى أقول بسيف فلم يغني شيئا وحده كتر ويسواك وقلوا لي وتاجي حتى سقط سيفه سيفتي وأبو جهل هيستي كل جنا ما كان سيفتي كل فتي أيها كان على ميدي عندي سي فضربته وكان على شايف سيفتي سي ما كل فتي بيها حتى برد إلى قل انتي سيفتي سكان عليه يعني تان قاربا كل فتي مركز سيفتي سي عدو هذه اللقاء تان قنيمية قيب سلجارد عدو الولد قال لهم كرا حتى برد إلى وكد انتوي باب في تعذيب الغرور خيامة غنيمة إيه وحاسة غرور كالله استعمال الجري غنيمة إن لك خيامة وأيضا لك يبصر القفص كتصرفه تعظيم يوينين تحاران تاس لوينيي حران أدوين وكبيرين تاي حدثنا مسدد أن يحيى بن سعيد وبشر بن المفضل حدثهم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي عمرة الأنساري عن زيد بن خالد الجهني مولاه أن الرجل ومن أصحاب النبي صحابة النبي كمذا يطوفي الله وفصل يوم خيبر فذكروا ذلك لرسول الله نبي أوشى قالوا لنيكي والله وفصلي فقال النبي حجري صلوا اسكجتوا كذا على صاحب اسكجتوا كذا يدينك اسكجتوا كذا فتغيرت وحايس بدا شيء وجوه الناس dadka wajigoodi lidalika erayga nabiga oo nabigu dib u gurtay yidinka kuntu kada ay saxaabadu wajigooda isla bedeleen inkir iyo yaab faqala nabigu wuxuu yiri inna saahibakum saahiibkin waxa aniga u diiday inaan kuntu kado qalla fi sabilillah jahadka fi sabilillah dhaxdii wax qiyaamo ayuu ku dhex sameeyay waxbuu qiyaamay markaasaa fatashna ayuu leeyahay saxaabigu waxaan baarid oo u dhaqaaqnay mataacu alaabtiisi bal waxa dheeraad ay wato fawajadna waxaan helay kharzan kul lulu iyo jawhar laga sameeyay oo min kharzi yahuuda yahuud jawharteeda kamida la yusawi dirhameyn laba dirham ma aananeen laba ma tabaal kuuno tabaano laba dirham ma aananeen oo fida ayuu aanay wax dheeraad oo soo maarta qiyaamay inta aan naar loo gelin nabiga uu jiiday xadiiska soo daciif oo imaan doonta laakiin saxiixa fi saxiixan waliba ku sugan البخاري ومسلم اساس عليه يا صوص هذا قال حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة عن مالك بن انس عن ثور بن زيد الديلي عن ابي الغيث المولى ابن مطيع عن ابي هريره رضي الله عنه قال خرجنا ومحنا يقول ابو هريره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر سنه خيبر فلم نغنم ذهبا ذهب ما نغنم يسن ما نهل ولا ورقا فضه ما نهل الا الثياب الدر والمتاع حول الابا ولا اموال حول دلكي يا بيري ويلا ما نهلي موينه واحد ذهب يا في الله لو كاش ما نهيلين قال وحوي لصحابه أبي هريرة فوجه رسول الله نبي عليه الصلاة والسلام أيا وحوجه وجه بمعنى توجه وحوجه النبي ودقاقي نحو وادي القرى حق أي وادي القرى ونك تبوك حكته أي ودقاقي وقد هدي لرسول الله نبي عليه السلام وهدي اللوسي عبد أدون أسود مذو يقال له لإيران مقعيس مدحم أي هدي اللوسي وخدمة وشقية حتى إذا كانوا بوادي القرى مركي وادي القرى أي مرايان فبينما مدعم نينكي مدعم هاي نبيغا لسيه ادونكا نبيغاها اسغا او يحض دجيناي فرايا رحل رسول الله جاديدكي نبيغا سو ررك كفرايا ارجاو waxa u yimid oo soo ku soo dhacay saamun leeb faqatalu leebki badilay leebaan la garanay meel laga soo gana cadow oo may soo shiisheen markaas kub laga siiyay lagu dhuftay asagana waaba dhintay faqala naas dadkiiba waxay dheen saxaabadu hani'an lahu nasiib leeyahay aljannatu lahu aljanna jannu leeyahay هنيئا باو سغناداي له الجنه جنو ليهي ايي دهن بوغاسي iyo hambal yu leeyahay jannu galay jannadaas wax walba saxaabadu ay qalbiga ku hayeen raadinayeen nafiyo nafiisba ay ku bixinayeen ninkii soo laba dilin adu soo ma dilin jannu leeyahay hambal yu ayay yiraahdeen faqala rasuulullah nabi alayhi salaam maqlaaya wuxuu yiri kalla maya walladhi nafsi bi yadi ma ku dhaartay janna ma gelin inna shamlata qaydki iyo maradi allati akhadha oo qaatay yawma khaybar min al-maghanim qanimada oo ka qaatay لم تصيبها وحي كدعين المقاسم قيبتي اسوا قيبتي ay kudhicin la qaybsanin uu siibtay oo xalay yalla tashtaciru عليه ku hurinaysa naar dab ayuu nabi kaleey salaam yiri maradi ba Allah haysta loo cadaabaya waa maro hal mara weeyo wax naarta dib loo geliyay wuxuu ku jira waajihaad hawshu ku jira qiimaheeda fiiri markii qiyaamada iyo gululku aad u xun yahay ma yaqulu yati ma qalla yawm al-qiyamah ay raysan falamma sam'u dhalika arrinka markay saxaabada maqleen inaan waxba la isku dhaafaynin
jaa rajulu nin baa wuxuu la yimid bishiraakin yeelmo aw shiraakeen laba yeelmo oo dheer oo macnaha kabta meeshaas horta hore laga gasho suulasha intaa yeelmada kabta lagu xidho ayuu wadaa ilaa rasuulillah nabigu u keenay calayhi salaam faqaala rasuulullah nabiga calayhi salaam wuxuu yidhi shiraakun min naar waa yeelmo naar ah aw qaala shiraakaan laba yeelmo min naari naara wey marka waa isgaaray saxaabiga radia allahu canhu saxaabadu wax naar la yidhaahdo meeshii laga sheego waa ka carari jireen jannana wax kastay ku bixin jireen laakiin muslimiinta waxaa ku dhacday gafla ku dhacday aayad iyo axaadiis kastoo la sheego waashi waa la sii wadaa baabun fi lquluul khiyaamadii idaa kaana yasiran hadday yarta yatruku limaamu imaamku waa ka tegi karaa walaa yuxariqu raxla rarkiisii iyo ninkii khiyaamada lagu arkay gurigiisa gubi maayo ilan in la gubaa bacda riwaayaat kusoo arooray in kaana fiiha dacaf laakiin haddii wax yar ay tahay ninkaa un wuxuu leeyahay aakharo waxaad kala imaato yaad leedahay anigu gurigaadana gubi maayo laakiin waa lagu haystaa xadathana abu saalix maxbuub binu muusa qaala anba'ana abu isxaaqin ibraahim binu muxamed alfazari can cabdillahi bni shawdar qaala xadathanii caamir yacni bn cabdilwaaxidi can ibni buraydata cabdullahi bnu burayda can cabdillahi bni camr bni caas radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi kaana rasuulullah nabiga alayh salam wuxuu ahaa idaa asaaba haniimatan haniimo markuu helo amara bilaala bilaal buu amri jiray inuu dhawaaqo oo dad nin walba waxaad hesheen ila dagaalka nin walba waxbuu soo qabane ha laisku soo aruuriyo fanaadaa waa dhawaaqay fi naasi dadka dhexdiisii fayajiu fanaadaa waa dhawaaqaya fi naas fayaji-uuna dadkan waxay keenayaan biqanaa'imin qanaa'imtoodii nin walba wuxuu soo helay ayuu keenayaa markaasaa dee intii laisku keeno fayakhmusuhu nabiga khumus ka bixinaya horta shan baa laga dhigay qaybood meesha shanaad baa la bixinaya lilahi walirasuul walidulqurba ayaa loo qaybinaya ayadda qur-aanka ay sheegtay wayuqasimuhu inti kalena waa qaybinaya fajaءa rajulu nin baa wuxuu la yimid bacda dalika intuu bilaal dhawaaqay la qaybiyey kadib bizimaamin keene iyo hogaan ayuu la yimid baalka geela iyo neefka geela unta lagu xidho ayaa la yidhahdaa zimaam keene iyo muxuuha hogaan ayuu keenay min shacarin timo neef adhiga laga sameeyey faqaala wuxuu yihi ninkii asagaa yaa rasuul allah haadaa midkan fii maa buu kamid yahay wixii aan kunaa ahayn asabnaahu kuwa helay min alqaniimati waxaan kasoo helay bay kamid tahay waa kan qaniimadii buu kamid ahaa qaniimadii lagu kala baxda faqaala wuxuu yihi samicta bilaala bilaal ma maqashay yunaadii markuu dhawaaqaya 3 jeer ma maqlaysay qaala nacam haa way maqlaayay qaala wamaa manacaka maxaa kaa reebay an tajiya bihi inaad keento factadara ilayh waa u calaacaray waxaasaa jiray buu yidhi faqaala nabigu wuxuu yihi kun anta adiga noqo tajiyu bihi midka la imaanayo malqiyaama maalinta qiyaama midka la imaano adi noqo ila qof walba wuxuu qiyaamo la imaanay falan aqbalhu canka kaa qaadi maaye meelun kala imo maalinta qiyaama baabu wuxuu ku saabsan yahay fii cuqubati alghaal qofka qaaliga ee qaashiga ah ee haniimada iyo xoolahaas ee muslimiinta intaan la qaybsanin iska khiyaama cuquubada la ciqaabayo ayuu ku saabsan yahay gurigiisaa la gubaya iyo wax saasa soo aroortay waa la nasakhay oo waxay xiina kaanat alcuquubatu bilmaal markii xoolaha lasuu ciqaabay markii dambe israafka maalka iyo xoolaha tabdiilkooda la xarimayse waa la diiday in guryihii iyo xoolihii la gubo ayay qaar leeyihin xadiis soo aroortayna waa daciif qaala xadathana nufayliyu wasaciid bnu mansuur qaala waxay yihi xadathana cabdilcaziiz bn muxamedin qaala nufayliyu wuxuu yihi alandarawardiy saas qoray alandarawardiy yani cabdilcaziiz bn maxamed adarawardi saasaan u dhaqaa cabdilcaziiz bn maxamed adarawardi halkaas waxay qoran alandarawardiy can saalix bn maxamed bn zaa'ida qaala abu daawuud wuxuu yihi wasaalix haada saalixan isaguna saalix bn maxamed la yidhi abu waaqid baa lala kunyadiisa qaala wuxuu yidhi dakaltu waxaan u galay maca maslama maciisa dakaltu waxaan gallay maca maslama saxaabigii maslama ahaanoo la socda arla ruum dhulkaa ruum baan gallay fa utiya birajuli nin baa la keenay qad qalla khayaamay nin khayaamo lagu helo oo xoolihii qaniimada wax kala baxay ayaa lasoo qabtay oo loo keenay maslama fasa'ala saaliman maslama wuxuu weydiiyey saalim binu cabdillaahi binu cumar oo la socday canhu masaladan uu weydiiye wuxuu yidhi bal ka waran xukunkiisa canhu can xukmihi maxaan ku samaynaynaa faqaala wuxuu yidhi saalim binu cabdillaahi samictu abi aabbahi cabdullaahi binu cumar baan maqlay oo yuxadidu ka warramaya can cumar bn khadaab aabihiisa isaguna can inabiyi sala allah alay wasalam cumarna qaala nabigu inuu yidhi idaa wajadtum rajula nin haddaad heshaan qad qalla khayaamo sameeyey faaxriquu guba mataacu alaabtiisa wadribuu asagana garac ugu daro tacziira qaala fawajadnaa fii mataacihi waxaan ka dhex hellay markaan alaabtii inaan gubno damacnay musxafa kitaab qur-aan fasa'ala saaliman canhu haddana saalim buu maslamihii weydiiyey war maxaan sameynaa musxaf baa dhex yaalle faqaala wuxuu yidhi bicuu musxafka gab watasadaq bitamani sadaqee inta kalena gub xadiidku daciif weeyaan qaala xaddathana abu saalih maxbuub bn muusa alandaki qaala anba'ana abu muusa abu isxaaqi can saalix bni muxamedin qaal qazawnaa maca alwaliid bni hishaam alwaliid bni hishaam bn cabdilmalik bni marwan annagoo la soconaan duulay wamacanaa saalim bn cabdillaahi bni cumar ayaa nala socday oo caalim faqiiha fuqahaa lmadiina ka mida wa cumar bn cabdilcaziiz imaamkii caadilka ahaa markaa ciidanku ka mid yahay faqalla rajulu nin baa khayaamay min mataacan alaab faamara alwaliidu
الوليد بن هشام وحو أمر بمتاع ألابتيس إلا الجبور فوحرق ولا الجبي وضيف بها سعر ضدك الورجي ولم يعطي سهم نمون السنين أنا سجن ولا ورجي وقراعي أصام الرئي عمل الضوافوي سورة رجال قراعي قال أبو داود هذا صحيح الحديثين لبدا حديث كاهر مرفوع بها مد كان ضمنه هو موقوف أو ولبا مقطوع ويان مد كان سجن مقطوع نعمه هذا صحيح الحديثين رواه حوري مد كان ضمن مقطوعة غير واحد نقف كبضا أن الوليد بن هشام إنه أحرق قبل رحلة زياد بن سعد يمكن إلى قريسي ألابتيزي وكان قد قلبوها من خيامي وضربه ولبه وقراعي وضري ضعيف المقطوع سونا حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا موسى بن أيوب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وأبا بكر وعمر حرقوا وحيدوا متاع الغالي كي وخيام ألابتيسي وضربوا ويلا قراعي قال أبو داود وزاد فيه علي بن بحر أي زيادة الشيخ أبو داود عن الوليد بكوريه ولم يسمعوا منه كمان مقال ومنعوا سهمه ناس كمان مقال ضعيف ويضره قال أبو داود حجر وحدثنا به الوليد بن عتبة وعبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا الوليد عن زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب قوله ولم يذكر عبد الوهاب ولم يذكر مشيغين من كان إلى هذا عبد الوهاب بن نجدة من كان إلى هذا وياه ولم يذكر عبد الوهاب بن نجدة الحويدي منع سهمه من الشيغين ولم يذكر عبد الوهاب منع سهمه من الشيغين ضعيف الحديث سامي ولودي دوان على كراعي حولين ولا يقبي انتاس باب النهي وحال اسكر بحديث ستري ان لقري على من قف غل وخيامه من وخيامه السمي حولي وخيامي ان هذا لا قري او ان مارته لا شيغين وبنانك لا سودي ولا حكومين arrintaa wala iska reebay yani qaada iyo qariye in la noqdo ma aha ka wax qaaday oo qaayinka khiyaamada saa ku koobnaato dadka intooda kalena farta ku fiiqaano حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن موسى بن داود قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال حدثنا خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال أما بعد بيرت هذا صوب الله وكان رسول الله النبي عليه السلام وهو يقول كير هذا من كتم غالا قف خاينة قف قرية فإنه مثل وأسوي لمديه ضعيف حديثكم لأن قيلولك يا خيامات يا خاين إلا قريسة نصوص هذا وفربانتها ولا تركوا الذين ظلموا أنتم هؤلاء جادلتوا عنهم العياذ بالله يجادلون عليهم القيامة نصوص رمضان بجرته أي محوها إن الله قرقار وظلم له قرقارين نقول إنسان لا تعاون عليه في العدوان باب في السلب سلب هو حولها محوها لصافرتين ما صعب ما لقاري ما صعب يا سعادة يدوه تلفون كذا تشاشر برمس يا كه ما صعيو يسدح دقيقة 1 دقيقة صدح ذا وحن قاضني شغوري صدح دي سر راجحة 1 دقيقة ما صدح ذا مورد راجحة هو أدق مراعاة للوقت لأنه المؤذن حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن معمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى بقتادة عن أبي قتادة أنه قال خرجنا وابعني مع الرسول الله صلى الله عليه وسلم نبي من عيسى بحني في عام حنين سنة حنين وسنة 6 هجرة هذه بعد فتح مكة فلما التقينا مكان كلنا كان للمسلمين جولة مركي دقالكي وكي مركي وراي ترتيب الآن وضعتي لمركي هوازنين وكي الليب كلا دعي صحابتي مركي وحاد على الجولة يعني عرر بعد عي همياق بعد عي مسلمين تبع حق وذي صغير شبا دعي قال فرأيت الرجل مما نركب له أبو قتادة من المشركين كميد وقد على كرك كفوري رجل من المسلمين تكميد من قال يا أبو كرك صارم قال وحي إلى أبو قتادة فاستدرته مكاسان دين وريقي لو أسجد وريقي حق قدال كمري حتى أتيته قال كمان أوي ماضي من وراي قدال بان كجاي ماضي فضربته وحقوله بالسيف سيفتي على حبل عاتقي قال اللقنطة يقرب كان حضورة حرقاس أقول تبي حبل عاتقي يعني اللقنطة حرق يعني هالكاس أقول تبي عنقه الله يرهضه فأقبل علي مركز وسو جيت سدي قالكي مركو ورنكي يسافت على حقه ودفتي وسو جيت سدي فضمني مركز يقبطي ضمني ويعمو جوقيي ضمت عمو جوقين ان وجدت دريمي منها ضمده حقيده ريح الموت موتك iyo geerida suudeedii baa u urtay buule geeri baa u urtay buule yani shiddat almawt baan dareemay iyo inaan naftaba ka baxdo yaa ka baqay ninkii aan ku dhuftay uma toos iga shaday oo darbulay iga shaday uma neeftu u ciriibi nafta iga bixi gaadhay wuxuu ku baxsaday tuma adraka almawt asagi baa geeridi ay haleeshay seefta aan ku dhuftay si fiican u gaarsiiyay iyo nafbaas dhulka ku dhacay saasan ku badbaaday buu yiri waan baqtin laha fa arsalani
ويسيد يهدو دحي فلحقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما سو غاري وحي صحابته اي ددايا هبقنكي فقلت له waxaan ku yiri ma baalu naas Umar dadka maxaa ku dhacay say wax naga noqdeen qaal amrullah amr ilaahi baa dhacay arinta maarata tartiib la'aan baa dhacday kadib dib muslimiinta isku soo laabteen oo nabiga u dhawaaqay calayhi salaam bay'adii la xasuusiyay Abbas dhawaaqay wakiidana guushi markii dambe muslimiinta ay heleen ilaahina nasrigiisa soo dajiyay gaaladina ilaahi uu indhaha ka galiyay عرضي النبي طول عليه السلام يا إلهي إنها كجري وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى إلهي ما كان يداس إنها كجري ثم إن الرسول إن الناس ضدك رجعوا ضدك بس الله عبطي رجوع عندك وهذا ولا سقط دجال كما تقول الله تعالى قول يستي كذب مال سقوي ما هذي سقري مدينة الله أروري السكون ورئيسته وحيد وعي وحيد انتي وجلس الرسول الله النبي عليه السلام ما فريس مال صحابتنا وقصوا أرورتي فقال وحول له من قتل قتيلا قفك له قال هذا كميدو دلي عندي له وصناده دل كيساسنا عليه كركيس بينا عدينا وصناته له قاتل كان واحد دلينا أوليه عليه على قتل الكافر قال كأنه دلي بينا عدين وهيستا فله نكا وحوليه هذا عدين تيسوه الله يماضه سلبه قال كأنه كسر قفاشي وكسر فرطي أسا عسكري والله لو كسر فرطي أسا قال حولها كره داقة يوم على غريميزن مويري حولها يبريها يبيرهاس مويري ninka gaalka wuxuu haystay kullu bisna nasiibka haduu saacadaha watay haduu kaba buuda qabay haduu ka fiibrad watay haduu dirac bireed oo qaale watay waxa Allah waxa ka furtana askari qaala faqumtu markaasan kacay ila Abu Qataada ila arin baa dhacday ninkii intuu diray in ba orodkii ee la sii haystay marka tiiba ay soo dhacday kuma qultu waa istaagay wanaga wala man yashhad qultu waxaaniri man yashhad li wariya ay maqraatika ila nabi maqraatiku xiray wariya ay maqraatika ثم جلس واسك فريسين ثم قال ثاني نبي مر لباد وحو كعليه من قتل قتيلا قفكي قف قال كبير دل له عليه بين حدين او هيسا ولو سلموا فرنتي اسا اسكر قال وحو الى ابو قتاده فقمت وان كعهدنا فقلت ما قلت وحاني ما يشهد لي ولا اي مغراتك ثم جلست مكاسان فريسين ثم قال ذلك ثالثا مرت دحال فقمت مكاسان كعيب فقال رسول الله النبي عليه السلام وحو ما لك maxaa ku haysta ya Aba Qataada ya imqraatika caleeda bil qisada nooga dhaco noo sheeg faqtasastu calayhi alqisa qisadii baan nabiga ugu qisooday in muslimiinta kamid oo la saaran yahay yaan ka riday gaalkii gacanteedan ku diray salabkiisina waan ka soo dhaqaaqay marka maqraatiga baad u xidhay maqraatigan suwaya faqala ar-rajul nimba wuxuu yiri min al-qawm dadka kamid ah meefadhi waa soo yahay sadaqa ya rasuul Allah Abu Qataada rubu sheegay wa salabu dhalika al-qatil كان مقتول كه اللي دليل سجى ودليل سلب كيسي وحي لقى صفر طيرة عندي أكيدو هاري درع برد كبير على بوحي وطورنا معنا هايستا فرده منهم يقرر لقلي نبع الله يقرر لقلي أبو قتادة يقرر هذا يعني لقى قادنا على الأرض وسيد كويل إذا نبى بدلوا مارتي حوجيسي خطر بكو قلاي فقال أبو بكر الصديق ما وحي نبي أنتوا راحلين لا هم الصين أيو كرر لقلي ما أيو ها براروجي الله بقول أرتي أما ها والله يقول أرتي إذا إنه يعمد قصدين النبي إلى أسد اللباح من أسد الله إله اللباحية كبيرة نك أبو قتادة فارس الرسول الله اللي هذا يقول شبه اللباح نك اللباح هل يجي جنسك هل جماعة أنتوا نبي قصده يقاتلوا دجال عن الله وعن رسوله علي الرسول دين دفاع عليه فيعديه كأنه نكسير النبي سقبه سلبه نك ودليل أبو قتادة ألبتس قصين معي أنا بالله أيوه اجتهاد ودارت النبي دارتي سنة اهتمام بسيء فيعديكه إنه كسير يعديك سلبه سلب المقتول أو نك أبو قتادة نسيبه ويا شيء إنه كسير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الرب وشيء أبو بكر فعديه سيئة أبو قتادة كسر ورجع الأبتيس نجي ودلودي الأبتيس قال كودلودي سي فقال أبو قتادة وحجري فأعطاني سنة فرت وجدي مر المجر اللي أنا صوفرتي هذا المجر فبعت الدرع على وضع كذي درع بلاد كيف عن إبيبي رأسوق جاي فابتعت به وعن قصة قطعي وإيجويسي مخرفا بير إذن مستوانا أو بير تمريتا وعلى وضعنا يساران تهي أيان كون قطعي في بني سلمة الله كي الهصد هو في بني سلمة لمن قريب بني سلمة رينا ساريدها بيرها بير كمدة يعني كون قطعي درع كريس فأنه كدرع قالي وهذه درع برد فأنه درع قاسي بيرتا أن كون قطعي الأول ما حولي أقول ريبو هايو تأثلته عن حولي كأسف عن أسكمتي في الإسلام قد حديث حولان أسكمه أون يبيغطه حولي أقول ريبو حيكسو جيدان درع برادكس مركو حاوي النبي عليه السلام وحولي جري وجعل الرزق تحت ظل الرمح دقالك حولا لقون حولا أوح على شوي قال هذا حربيين تي مسلمين تي دقال الله ما يوحي لقاهم وحولا لقون حولا أوح على سوي حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوي يومئذ ما ننتهى يعني يوم حنين ما ننتهى حنين من قتل كافرا منك قال دل فله سلامه فرنتي زوج وقفر تساس كله فقتل أبو طلحة وحود يومئذ 20 رجلا لباطن من بودري من آد رامي أبوها وأخذ أسلامهم وعلى الله وحي فرنت الله وكسر قاطي ولقي أبو طلحة وحول كل ما أم سليم حاسكيس أم سليم بنت ملحان ومعها خنجر أيضا من دي وين هيزتا أيضا توري هيزتا خنجر بالله هيزتا أيو أركي فقال يا أم سليم ما هذا معك قام واحد تريد محيط قالت حيث أردت وحن دوني والله ما قلت أرتي إندنا هدو يسو دواد مني أنا بعضهم قالوا متكمل هدو يسو دواد قعنتها لقارو ويسو دواد أبعجو إنا كنت ضوحو به خنجر كبدنا وعلوش سنة كنت ضوحو وعاوز كسو الردو كي يسو دواد إنا عاوز كسو الردو روابتني فأخبر بذلك أبو طلحة أوشك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو داود هذا حديث حسن قال أبو داود أردنا بهذا الخنجر حديث وحن كده وجدنا خنجرته وأنه جائز السلاح القتال به إن وضع الله مكره فكان سلاح العجم عجم لمن قال يراد عربته هين هو كوذبها يومئذ الخنجر بوها وكساس حديث كان سجن الله كاني إنك صوبت حديث الله كان سبب نزول كأي تأثر الورود أما ترجمته وكوافقه صلب كاسي يوحى مارة قف دلا إنه قاضنا أيوه حديث كسلام من أبو قتادة يا طلحة بن أبو طلحة زيد بن سهل ayaa ku saabsan xinjarta in lagu dagaalami karo oo hubka kamid tahayna ayaduna waa ku faa'iideeyay wallahu a'lam billahi tawfiq sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina muhammad